saamaynta khasaaraha iyo shilalka ka dhaca caasimadda magaalada Muqdisho oo ay sababaan darawallada kaxeeya mootobajaajta oo sii kordhaya xilli ay soo badanayso xirfad yari haysata wadayaasha mootobajaajta taasi oo ka dhalata dhibaatooyin kala duwan waxaa soo degaya mootobajaaj aad u fara badan kuwaasi oo aan xamili karin caasimadda magaalada Muqdisho waxaa soo badanaya darawallada ka shaqeeya gaadiidka bajaajta kuwaasi oo shaqo abuur ka sameeyay dhalinyaro Soomaaliyeed gaadiidka bajaajta waxa ay leedahay faa'iidooyin aad u fara badan waxaana ka mid ah faa'iidooyinkaasi waxa yaraaday dhalinyaradii u tahriibi jiray dalka dibadiisa waxa ku xamaasha oo nolosha ku maareeya qoysas Soomaaliyeed oo aad u fara badan darawallada wada mootobajaajta waxa ay sidoo kale ka qayb qaataan amni darrada ka jirta dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho iyo darawallada aan dhowreynin sharciga marista wadooyinka ee magaalada taasi oo loo sababaynayo xirfad yari haysata darawallada mootobajaajta qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta iyo dadka isticmaala ayaa ka hadlay faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leedahay mootobajaajta iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan magacaygu waa Maxamed Daahir Mursal su'aasha ay weydiisay mootooyinka faa'iidada ay leeyihiin iyo khasaaraha ay leeyihiin haddaan faa'iidooyinka ku hormaro mootooyinka waxay leeyihiin faa'iidooyin fara badan oo aan la soo koobi kareynin waxay shaqo abuur u yihiin dhalinyar aad u fara badan ayay shaqo abuur u yihiin waxaa lagu biilaa xaafado badan iyo reero badan ayaa waxay u yihiin dakhli ka soo gala dhalinyar fara badan oo tahriib lahayd ayaa tahriibka lagaga celiyaa mootooyinka khasaaro badan bay leeyihiin khasaarooyinka waxaa ka mid ah dhalinyar fara badan ayaa loo soo dhiibay aan khibrad lahayn jididkii oo aan nidaam lahayn marka shilkooda badan oo waxa badan jaamkooda fara badan waxa adeegsada sida oo kale daraagiska iyo tuugada ayaa dadku adeegsadaan magacaygu waa Liibaan Geela Xasan maashaan fisana faa'iido way u leedahay sina khasaaro way u leedahay faa'iidada waxa waaye horta dadkii dhalinyaradii shaqo la'aanta haysay dhalinyaro xunna way ku jiraan dad oo oo ilmo ku biisho oo dan ay hayso oo dan ay u geysay oo way ku jiraan taliyaha ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee traafiko sareeye guuto Bashiir Abshir Geedi ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ay sababaan darawallada kaxeeya mootobajaajta iyo tirada shilalka ka dhasha mootobajaajta waxaan loo yaqaan mootobajaaj oo tirada gobolkan ama caasimadda joogta oo aysan qaadi karin caasimaddu ama gobolkan Banaadir oo aysan qaadi karin tiradooda oo lagu qiyaasayo qiyaas kaliya maahane oo xataa la heli karo tiradooda saxda inay gaarayaan ilaa 60,000 oo mootobajaaj marka waa garan kartaa caqabadaha ugu badan oo ciriiriga iyo shilka iyo dhimashada iyo dhaawac uu ka imaanayana ayaday ka timaadada sababtoo ah sanadkii ka tagay waxaan diiwaan gelinay inta shil ay gashay 1713 shil ayay galeen 6 bilood macnaheedu marka waxa waaye 12 bilood waxay noqonaysaa wax ka badan 3,500 oo mooto waa garan kartaa nasiib darro waa culayska ugu badan oo aan dareemayno aragno aad iyo aad ayayna runtii waxay u baahan tahay in si gaar ah arrintaas looga fakaro laga wada hadlo go'aamo waaweyn oo dadka dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo magaaladan ku sheegaa bilicdeeda lagu ilaalinayo in laga soo saaray u baahan doontaa taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee traafiko sareeye guuto Bashiir Abshir Geedi ayaa sidoo kale sheegay in mootooyinka bajaajta ee ka soo degayo dekedda Muqdisho ay aad u fara badan yihiin isla markaana aysan xamili karin caasimadda magaalada Muqdisho wuxuuna tilmaamay in la joojiyo degitaanka mootobajaajta isla markaana kuwa hadda ka shaqeeyana magaalada waqtiga loo sameeyo ganacsatada in
12,000 maxaan kuu sheegay 1,200 aan ka wadaa oo mooto inay 6 bilood timaado oo sanadkii yani 2,400 oo mooto inay dekada ay ka soo degto haddana iyagoo kartoomo ku jira oo aan xirxirna inta la soo dejiyo oo maxaan kuu sheegaa la iibiyo oo sidii maxaan kuu sheegaa bagaashkii dadka loo xirxiro haddana qofkii inuu inta mootadii gato isagoo meel laga xiga aan aqoon inuu steerinka iska fuulo halkaasna soo degitaankeeda xadadkeedoo tiro badan sida loo iibinayo sida loo xirxirayo iyo sida maxaan kuu sheegaa dadka markay iibsadaan ay u isticmaalayaan iyagoo aan marin shuruucdii laga rabay iyo mas'uuliyaddii inay ilaaliyaan laga rabay meelahaas dhan ayaa culays ka imaanaya culayskaas waxaa qayb ka ah markii mootadii oo kartoon ku jirta ganacsaduhu oo baqaarkiisa geeyo marka uu xirxiro isagoon sumad lahayn oon laysan baalkii buug lahayn oo aan taariga lahayn inuu inta iibsado qofkii uu ka iibsaday markaas kadib inaan baadi goobno waxay noqonaysaa culays kale. magaalada caasimadda muqdisho waxaa ku soo badanaya darawallada kaxeeya bajaajta ee ku xamaasha Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed muqdisho.